السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ka hadli doonaa hadduu ilaah iraado prepositionada kala ah with, by, at. waxaana iga soo codsaday mid ka mid ah asxaabta janalka ku xidhan. Okay, intaan casharka aan sii gudgelin aan ku xusuusiyo haddii janalka aad ku cusub tahay in subscribe sar sii share garay videona like garay aan kala faa'iidaysana insha Allah si ayagana asxaabta kalena ay uga sii faa'iidaystaan. Okay, bismillah, casharkan sii gudgelaya marka waxaan ku hormarayaa with qaybta koowaad with waxaa loo isticmaalaa to indicate being together or being involved. يعني waxaa loo isticmaalaa with wax isla xiriira, yani laba shay oo isla xiriirta. wax isla xiriira loo isticmaalaa being together ama being involved. يعني shay kale la xiriira, laba shay oo isla xiriirta loo isticmaalaa. shay la xiriira shay kale, yani laba shay oo isla xiriirta, laba shay oo isla xiriirta loo isticmaalaa. Number 1, tusaale, I ordered a piece of cake with a drink. I ordered a piece of cake with a drink. Aniga waxaan dalbaday gabal doorsho ah ayaan dalbaday oo la socto cabitaan. Yani lama dhihin keliya I ordered a piece of cake. waxaan dalbaday keliya gabal doorsho ah, lama dhihin. halkaas laguma soo koobin. waxaa la raacsiiyey with a drink. yani gabalkaas doorshada ah waxaa la socdo cabitaana la socdo. يعني labadoodu isla dalbaday ninkan. marka with tan hadda waxay cadeynaysaa marka being involved with, yani inay isla xiriiraan cabitaankan iyo gobolkaas doorshada ah waa isla xiriiraan, yani being involved or being together. waxa la tahay la fahmay. I ordered a piece of cake with a drink. waxaan dalbaday gobol doorsho ah with a drink oo la socto cabitaan la socdo ayaan dalbaday. isla socdaan, yani being involved waa wax isla xiriira waay. caanahaas cabitaankaas iyo gobolkaas doorshada ah waa isla xiriiraan. marka with taasaa cadaynayso inay yihiin being involved. tusaale labaad, he was with his friend when he saw me. asaga wuxuu la socday saaxiibkiisa when he saw me, markuu i arkay. yani markuu i arkayay asaga saaxiibkiisu la socday, keligiis ma uusan ahayn. marka hadda with tan waxay cadaynaysaa marka being involved. yaa being involved ah. waxa isla xiriira waa kuwe, maxaa isla xiriira? waxa isla xiriira maxay yihiin? waxay yihiin he was with his friend. asaga iyo saaxiibkiisa way isla socdeen markay aniga i arkayeen. yani asaga markuu aniga i arkayay. he was with his friend. asaga saaxiibkiisu la socday when he saw me, markuu i arkayay. asaga markuu i arkay, yani asaga markuu i arkayay saaxiibkiisu la socday. asaga iyo saaxiibkiisu isla socdeen. marka asagaas la sheegayo iyo saaxiibkiisa waa labo, waa being involved waay. ma fahamtay? okay, waxaan u kala dhigaya wax kale ma, waxaan rabaa kaliya inaad fahamto ujeedka. okay, sidoo kale with waxaa loo isticmaalaa to indicate using, isticmaal. yani using wax la isticmaalayana waa loo isticmaalaa. wax la isticmaalaya maxay yihiin? tusaalahan ka fahmi doonaa. I wrote a letter with the pen you gave me. I wrote a letter with the pen you gave me. qalinka aad isiisay warqadaan ku qoray. qalinka aad isiisay warqadaan ku qoray. yani ninkan muxuu isticmaalaya marka hadda? wuxuu isticmaalaya warqadu isticmaalaya Soomaan. waxay cadeynaysaa taas marka wuxuu dhahay I wrote a letter with the pen you gave me. qalinkaad isiisay ayaan waxaan ku qortay, waxaan ku qoray ayaan wax ku qoray. yani marka with tan hadda waxay cadeynaysaa ninkan inuu isticmaalay qalinkii la siiyay Soomaan. marka waxa way waxay la tahay inaad fahamtay. tusaale labaad, this is the soup that I made with rice and tomato. kani waa waxa waaye this is the soup. kani waa maraqii. maraqaas oo aan ku sameeyey rice and tomato, bariis iyo yaanyo ayaan ku sameeyey. markaas maxaa la sameeyey? maraqa la sameeyey Soomaan. isticmaal waay. yani using ay cadaynaysaa Soomaan. okay, taas halkaasna ugu gudbaya. ta kale waxaa kaloo loo isticmaalaa agreement, heshiis ama fahan. tusaale, are you with me oo kale aad fiiri. are you with me? meela socotaa? ma i fahamtay? marka with tan hadda waxay cadaynaysaa marka agreement ay kale, agreement waay ama understanding labadaba. are you with me? meela socotaa? ma i fahamtay? waa understanding. are you with me? ma i fahamtay? meela socotaa? marka waa understanding. ta kale marka tusaale labaad, I agree with you. waan kugu raacsanahay. waxay cadaynaysaa marka agreement. yani qofaa wax ku raacday Soomaan waa agreement. tan waxay cadaynaysaa marka
inay tahay tusaalaha labaad waa agreement tusaalaha koowaadna waa are you with me tusaalaha labaad waa understand tusaalaha koowaad waa understanding waa fahan tusaalaha labaadna waa agreement okay taas halkaasna uga baxaya marka waxaan galaynaa marka by okay by marka ayadana qaab badan baa loo isticmaalaa waxaa ka mid ah to show how something is done sida wax loo sameeyo oo kale ama sida wax loo sameeyo ama wax loo sameynayo tusaale we send a letter by post anaga fariinta ama qoraalka ama letterka ama warqadda waxaan ku dirnaa post ahaan u dirnaa by post aan ku dirnaa marka wax la sameeyo waay something is done by post post waxa waaye xilliga hore la isticmaali jiray Soomaalida inkastoo hadda caalamkaas laga isticmaalo post okay tusaale labaad we contact someone by phone or email yani qofka waxaan kula xiriirnaa anaga telephone aan kula xiriirnaa ama email marka by hada cadeynaysa marka something is done okay ta kale waxa kale loo isticmaalaa by qofka markuu safrayo oo kale someone travels ayaa loo isticmaalaa tusaale they came by car oo kale ayaga waxay ku imaadeen gaari ay ku imaadeen ama sidoo kale by taxi ama taxi ay ku imaadeen ama by train ama train ay ku imaadeen ama by plane ama diyaarad ay ku imaadeen intaasba waxaa loo isticmaalaa by waa someone travel ayaa loo isticmaalaa sidoo kale waxaa kaloo loo isticmaalaa by in passive sentence markaan joogno ama passive voice to show who or what did an action yani qofka iyo sababta uu sameeyay fal yani qofka wuxuu sameeynaa fal uu sameeynaa ama qofka uu sameeyay ama sababta uu sameeyay waa loo isticmaalaa tusaale this was painted by Ali kan waxaa sabiray Ali yaa sabiray this was painted by Ali sabirkan waxaa sabiray Ali marka waxaa la sameeyay Soomaa sabirkan yaa sabiray waa action fal waay yani sabirka wax la sameeyay waa Soomaa wax la sabiro waay waa action ficil waay ama fal la sameeyay waay yaa sameeyay Ali yaa sameeyay Soomaa marka passive waay okay halkaas waxa la tahay la fahmay tusaalaha kale in passive markaan joogno passive voice ka sidoo kale waxa kale loo isticmaalaa by this house was built by my grandfather oo kale guriga waxaa dhisay oo kale awoowahay marka baydan hadda guriga la sameeyay maaho sameyntaas maxaa waay ficil la sameeyay waa qofaa sameeyay taas waxay cadeynaysaa marka inay tahay passive sentences sidoo kale by waxa loo isticmaalaa alone kelinimo oo kale qofka markuu kaliya uu yahay oo kale tusaale I stayed at home by myself and read the newspaper oo kale guriga kaliyagan joogay by myself mujida by myself guriga kaliya ayaan joogay and read the newspaper waxaan akhristay journalka ama wargeys ayaan akhristay marka waa kelinimo guriga ayaa joogay kaligiis by himself yani by myself uu yiraahdo oo dhahay mugta tusaale labaad the man opened the door by himself qolka yani ninka opened the door albaabka ayuu furay by himself asaga ayaa furay yani himself nafsadiisu ayaa furay asaga furay himself Allah sidoo kale waxa dhigi kartaa oo kale the woman opened the door by herself oo kale marka kelinimo almuhiim waxa rabaa inaad halkan aad ku fahamtid oo kale alone kelinimo loo isticmaalaa intaas oo dhan waa loo isticmaalaa marka waqtiga ciriiriga ah inaan soo koobana waan rabaa then waxaan galaynaa marka at waan soo koobaya waan ku dheeraaday xogaa alxasil waxay la tahay inaad fahmi doontid at sidoo kale waxaa loo isticmaalaa specific time waqti cayiman tusaale waan soo koobaya la soco waan bubsinaya I will meet you at 12 pm waxaan kula kulmayaa 12 pm markii la gaaro 12 pm waxa waaye 6 saac duhurnimo waay ayaan kula kulmayaa marka waqti cayiman waay waqti specific time waay I will meet you at 12 pm ayaan kula kulmayaa marka at hadda waxay cadeynaysaa specific time the bus will stop here at 5:30 pm baska halkan wuxuu istaagi doonaa ama wuxuu imaan doonaa ama wuxuu istaagi doonaa halkan saacadu markay tahay 12 saac barka duhur galbihi galabta yani 12 saac barka galbihi waay pm okay marka at hadda waxay cadeynaysaa marka specific time oo ah 12 saac iyo bar galabnimo okay waa fahnay intaas sidoo kale waxaa loo isticmaalaa at bless tusaale we saw a football game at the stadium anaga waxaan ku aragnay kubadda cagta ciyaar kubadda cagta ayaan ku aragnay garoonka marka at hadda waxay cadeynaysaa marka bless stadium waay mujida okay at the stadium
waxay la tahay in la fahmay halkaas sidoo kale waxaa kaloo loo isticmaalaa email address waa loo isticmaalaa tusaale please email me at abcd@gmail.com fadlan halkaas email igu soo dir oo kale at ayaa loo isticmaalaa mujeedaa waa email address okay sidoo kale activity wax qabadka oo kale waa loo isticmaalaa tusaale he laughed at my acting asaga wuxuu ku qoslay jiliinkayga ayuu ku qoslay marka at hadda maxaa loo isticmaalay acting maxaa waaye waa jiliin marka waa activity wax qabad waay soomaan okay tusaale labaad I am good at drawing oo kale aniga waxaan ku fiicana oo kale sida wax loo sawiro wax sawiraad waan ku fiicana marka drawing hadda maxaa waaye waa activity wax qabad waay marka at hadda maxay adanaysaa wax qabad oo ah drawingkaas marka waxay la tahay in la fahmay waqtiga waa badii waa 10 minutes al maro hadda halkaan ku soo gabagabinayo oo inoo 10 xiga soo nabadgelyo wassalamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh